Skin bleaching amaba iscadayntu waa in qofku uu isticmaalaa wax soo saar ama product uu midabka Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u dhaliyay uu ku bedelayo si uu ugu muuqdo qof cad. Marka laga tago in dhaqankeena suuban iyo diinteena xaniifka ah aysan ogolayn, haddana waxaa hubaal ah in aysan jirin wax damaanad ah oo uu qofku u haysto in uu yeelan doono midabkii uu jeclaan lahaa marka uu iscadeeyo amaba uu isticmaalo waxyaalaha la isku cadeeyo. Waxaana taa beddelkeed jira halis caafimaad darri oo qofka uu kala kulmi karo iscadaynta. Marka uu qofka midabkiisa beddelayo, waxa uu isticmaalayaa daawooyin yareynaya xaddiga wax soo saarka unugyada loo yaqaano melanocytes, oo ah unugyada soo saara maadada midabaysa maqaarkeena ee loo yaqaano melaninta. Dadka madoobay waxaa ku badan maadada midabaysa maqaarka ee loo yaqaano melaninta. Waxaa sidoo kale tahay saameyn ku leh heerka midabka qofka waxyaalo ay ka mid yihiin dheecaanada jirka iyo iftiinka qorraxda. Wadamo badan ayaa mamnuucay waxyaabaha la isku cadeeyo amaba uu qofka midabkiisa ku beddelo, sababtuna waa khatarta lala xiriiriyay oo aad u badan. 2006dii, hay-adda Food and Drug Administration ee FDA ayaa sii daysay ogeysiis ay ku sheegayso in waxyaabaha la isku cadeeyahay ee farmashiyaha laga soo iibsado adiga oo aanan u baahnayn warqadda dhakhtarka ama prescription letter-ka in aysan ahayn kuwo waxtar iyo badqab intaba leh. Kareemyada iyo waxyaabaha kale ee la isku cadeeyo waxa ay ka samaysan yihiin maaddooyin iyo walxo ku keensan kara dhibaatooyin caafimaad darri. Tusaale, daawada hydroquinone marka aad mariso maqaarkaaga waxa ay yareynaysaa tirada unugyada soo saara midabka ee melanocytes, kadibna waxaa hoos u dhacayo melaninta oo ah wixii ay soo saarayeen. Qofkan waxa uu muuqanayaa inuu caddaaday. Melanintu waxa ay naga caawisaa in ay ka hortagto fallaaraha cadceedda ee loo yaqaano ultraviolet-ka, kuwaasi oo keena kansarka maqaarka. Dadka isticmaala kareemyada la isku cadeeyahay ee ka kooban daawada hydroquinone waxaa ku dhaca cudur maqaarka waxyeeleeya oo loo yaqaano exogenous ochronosis, oo lagu yaqaano in qofka jirkiisu uu yeesho midab buluug madow ah. Waxay xaaladani ku badan tahay dadka jirkooda si dhammaystiran u wada cadeeya. Sidoo kale, kareemyada la isku cadeeyahay waxaa ku jira daawooyinka loo yaqaano corticosteroids, khaasatan maadada loo yaqaano hydrocortisone oo ah maado hoos u dhigta difaaca jirka. Waxayse dadka iscadeeya ku keentaa xaalad loo yaqaano steroid acne, markaasi oo ay finan ka soo baxaan jirka qaybtiisa sare iyo gacmaha. Haddiise qofku uu waqti dheer isticmaalo daawooyinka ay ka samaysan yihiin corticosteroidska, waxa ay nabruhu ka soo bixi karaan dhammaan jirkiisa. Sidoo kale, qaar ka mid ah kareemyada la isku cadeeyahay waxaa ku jiro maadada mercury, waxaana ka dhalan kara waxa loo yaqaano mercury toxicity. Mercurygu waa laga mamnuucay dalalka Mareykanka iyo dalal kale oo badan, balse waxaa jira weli dalal kale oo aanan laga mamnuucin ama mamnuucitaanka aysan ka dhaqan gelin. 2014, cilmi baaris lagu sameeyay 549 nooc oo kareemada la isku cadeeyo amaba maqaarka jirka lagu beddelo, waxaa laga helay 2% in ay ka kooban yihiin maadada mercury. Wax soo saarada kareemyadaasi cilmi baarista lagu sameeyay 50% waxa ay yaaleen istoorada ku yaala dalka Mareykanka oo ah dal laga mamnuucay isticmaalka mercuryga. Dhibaatooyinka kale ee ka dhasha mercury toxicity waxaa ka mid ah in uu saameyn ku yeesho kelyaha, markaasi oo uu ku keeno xaalad loo yaqaano nephrotic syndrome, markaasi oo kelyadu ay beerdareyso borotiinyada jirka kuna darto kaadida. Sidoo kale, iscadaynta waxaa laga dhaxlaa xaalad loo yaqaano contact dermatitis, markaasi oo qofku uu yeesho calaamado ay ka mid yihiin maqaarka oo guduuto, nabro, dildillaacyo, maqaarka oo qolfoof iyo qallayl yeesha, barar iyo cuncun.